ان والدينتي عروضتي ديغانayeen iskuulka abaarso qayb ka mid ah yaa warbaahinta ka soo muuqda waxyaabo ayaga laftooda caruurtooda wax u dhimayo yaa halkaasi ka sheegay iyagoo doonayo inay cadmaali wax ka gooyaan laakiin u horseeday ceeb iyo fadeexad awlaadi iyaga ay dhaleen kuna waxaan wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan soo dhawaada habeennimadii xalay waxaa magaalada Hargeysa shir diraad ku qabtay qaar ka mid ah caruurta dhigato iskuulka abaarsa iyagoo isku sheegay inay yihiin guddiga iskuulka abaarso waxyaabo fara badan ay mataqaanaa ka hadleen qayb waxay ku dhaliileen sheekh maxamed sheekh ismaaciil bay ku dhaliileen qaybna cabdimaalig bay mataqaanaa isna ay ku dhaliileen sheekha markay ka hadlayeen maxay dhaheen midkaasi sheekha sheeganayo waa dulinimo u dambeysay waa midkaasi sabul culamaa ka qatlihi qofka caalimka diinta xambaarsan marka dad hayso waa adigoo dilay oo kale waayo al culamaa warathul anbiya anbiyada waxay dhaxleen culimadu waxay dhaxleen anbiyada marka ninka caalimka ah diinta ku sheegay inaan dhado midkaas meeqa jeer baa la xiray oo diin baa loo xiray waa ogeeyay ninka xiray TBLF baa maxaa loo xiray diinta dadka u sheegaysa ka daa u sheegin ee loo xiray wax kala ma ahayn ka soo gudub waalidiinta waxyaabo fara badan bay mataqaanaa ka hadleen horto iskuulka abaarso ardayda qayb ka mid ka baxday ama waa tagay muxuu ahaa Mareykanka iyo meelo la mid ah waan aragnay oo waxaan ku aragnay iyaga oo waxyaabo aad u dhaqan xun iyo mataqaanaa sameeynay yaan aragnay taasina marka kulliin kasta mataqaanaa uga daragsan yahay markaan saaleenahay waxaan arkaynay iyagoo iska madax qaaban iyagoo mataqaanaa qaarkood waxyaaba muxuu anshaxuma mataqaanaa sameynayo ninkasta wuu ogyahay oo carruurta lagu soo bandhigay muxuu ahaa beejka coldoon midka fayga midka saxda maaha midka faygu ahaa lagu soo bandhigay waayo beejaj badan baa jira oo lagu samaystay magaca cadmana sheekh muuse coldoon laakiin midkiisa saxda ahaa kumaanan arag qayba ka mid laakiin sidii mataqaanaa ninkii khaniiska ahaa uu soo qaatay iyo naagtii mataqaanaa ee baadriyada marka iyaga waxay ku andacoonayeen dhahayeen cabdimaalig wuxuu yidhi carruurtaana waa khaniisiinta mustaqbalka waalidka marka waxaa iskaga khaldan beejka saxda ee cabdimaalig uu leeyahay qofka sidiisa marka uu caan u noqdo intaasoo beej baa laga kala samaystaa marka beejka laga samaysto qof hadduusan garanaynin wuxuu rabuu sheegay adiga maanta waxaad leedahay cabdimaalig wuxuu yidhi khaniisiinta mustaqbalka kumaanan arkinna mataqaanaa beejkiisii wax la mid ah taasi marka waxay ku tusinaysaa marka in adiga carruurtaadii sharaftooda mataqaanaa inaad dilayso waayo dadka maysan garanaynin carruurtaada kamaysan garanaynin dadka meesha ku jiro inay dhigtaan inaysan dhigin wax ogaa ma laha laakiin adigaa sheegay oo mataqana meesha loo soo fadhiistay meesha mataqaanaa sheegay waxaad ayd u soo jeedisay waxaad tidhi aniga kama hadlayo arrimaha diinta oo waayo culimada joogto yaad leedahay culimada joogto haa laakiin culimada caynaysa hadda qaar idin ka mid culimada mataqaanaa haysteen iskuulka abaarso nin kasta wuxuu u ogi waxa loo dhisay nin kasta uu ka dharagsan carruurta ka soo baxayna waa la yaqaanaa kuwo wanaagsan iyo kuwo xun inta iskugu jiraan sideedaba qofkan ilaahay baa mataqaanaa yaa ka dhigaa qof wanaagsan qof xunna mataqaanaa isagaa doorto qofka inuu xumaado waayo waddadaydigu mataqaanaa maraya xalay waalidiinta qaarkood oo carab muujinay cabdimaalig waa beenaale waa inuu sii xirnaada haddii waa yahay dembi uu ku xirnaada keen hadduu ku yidhi war diinteenni yaa duulaan lagu yahay ee carruurtan mataqaanaa hal ilaalso haddii carruurtaad ilaalsan lagu yidhi ma dhibaato mataqaanaa cabdimaalig kugu sameey kuma sameyn laakiin wuxuu kaaga degay dhibaato kusoo socoto kaaga degay laakiin annaga waan iska idhantiranaa arrinta iyada waalidiinta waxay iskugu jireen kuwa qiiraysan oo mataqaanaa xamaasadii ka muuqatay
يكون سيدكن وما تقنا معقول وهذي مد كم إذا قبر الشيء تيمد هذا قبر ما هذا اللي يصير هذا ليس خلينا المستقبل نين كسمت كنا وأكيد ترى برشة كتيرته وحكم إذا نين استجنا إن أدو هالضيو أو سوق تيسنا ويري وقعد مالك وكهذي هدي لسوداي حتى أنا وصلنا قبل بعدين هدي لسوداي تعسير ما هو حركة تسلسة إن والدين تن أي ديار وجهين إن كاسي حق ضرر إنه بصيح النار إن إيجا لفتو دقيق كيهين حركة عدم مالك شيء موسى قردون هدي واحد دمي باريستا أي صوب بارتي ولكن بارتان سومري ومحكمة اللكيان دمبي لجواي والد كان حجيبي دمبي إيجا نكن أوكيريا حجيبي دمبي إيجا أوكيريا بالمكة قيبها كم إذا والدين هذلي هذا القدر إلى دعوة المكة هذا أنا جيني واسكول لعقنا لقى قاضو لعق علينا لقى قاضو $200 بانو بشي بحنا بقول كلنا خرشات كون نقص $100 بانو كبحنا امتحان ويهلين وسير إيا عاقل إيو برلمان من إنه ما جينا هدي نو جينا يوم ما بعنا هلين امتحان كودا إيا نسيب كودا عرورتي كريم كهيد إرسو مالان أيا دقتا هدان كهالله وحال صور دقا فضيحة بدن oo dhismaha iskuulka ah oo suuliyadiisa ah oo dhaqankooda ah oo la leeyahay way isku dhex jiraan hadaan ka hadlo iskuulku waa laba qaybood waa qayb hablaha ah iyo qayb inamada ah qaybta galbeedka xigta oo laba geed oo kala dambeeya leh hablaha dhigta waxa u dhaxeeya galaasyada iyo meelaha wax lagu cuno inamaduna bari bay xigaan hablaha iyo inamada abaarsa dhigta isma salaamaan inantu walaalkeed ma salaanto salaamu calaykum walaalkeed haday ku tiraado iskuulka waa laga eriya isdhexgalka la sheegay horta taasay kamida inaanay labada caruur ee wada dhashay is salaamin oo aanay isalaami karin caruur akhlaaq leh oo diin leh masaajidadii baa ku yaala kutubtii bay sitaan xusn muslimkii bay sitaan tartan quraan baa loo sameeyaa masaajidaday dhigtaan yaani waa caruur akhlaaq leh anagu ujeedadan caruurtayada isaan u tarbeeyeen waxa weeyaan waxa tihiin daaciintii diinta islaamka maadaama luqadii adduunka barateen oo si caalamiya u barateen oo cilmiga maadiga u barateen ka diiniga ana si caalamiya u barta بريتا وحاتين دتكي داعين تهدين تسلم كفدناي فرينتا أنو سينا واتا maalin walba warbeena ayaa la wareejinaya arrinka waxa dhibana u ah marka laga reebo 400 oo arday oo dhigata ilaa 2000 oo waalida waxaan maqlayay Abdulmalik Coldan waa la sii deynayay hadii dawladdu iyada dadka kala haysay ay sii ay maxaa ay kala qaban weydo nin walba sharciga gacanta ku qaadan doonaayo dee waa la iska xilin doonaa maxaan idhaahdaa dacaayadaha yar raqiiska ah reer bay u furan tahay iyo waxyaabaha lagu meeraysanayana wax jira ma aha dawladdu dadkan soo kala gaadho oo waxa ka qabato arrinkani waa arrin maxaan idhaahdaa marka dambana ceeb furaha ula geli kara weeyaan maartay dadkuna waxaan